الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kuna soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinka geemaanay stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya qodobada ugu door karoon warka uu idin hayo telefishinkana waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana halkaasi loogu soo dhaweeyay si aad u balaaran iyadoo meel fagaaraha uu kala hadlay dadka ku dhaqan degmada Baraawe dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta furay bangi ay ganacsato Soomaaliyeed ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho iyadoo tilaabadaasina ay qayb ka tahay maalgashiga lagu sameynayo dalka رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن عبد الولي الشيخ أحمد محمد أيام مقالة قروة مانتا كفوري شركة وذا حاجوت كأودحية دولة الصومالية يمام مركب بنتلان وزارة ورفافينتي هنونين تدقوينها ومانتا صوصارتي وربحينتا ورمركة دولة اسبوعي لصودا فأي أوغا هذا الشيء حول قلدي لقو حرية براوية عدا اللي هرقلين تفدرال كيو الرمكالي وزارة بوسطة إسقارسينتا حكومة الصومالية ayaa maanta ugu baaqday shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala magaalada Muqdisho in muddo 10 cisho gudahooda ay isku soo diiwaan galiyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay casho sharaf u sameeyay mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda Turkiga ee ka shaqeeya gobolka Banaadir waxaana uga mahad celiyay doorka ay ka qaadanayaan dib u dhiska iyo horumarka dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho roobabda ayay muddo dhowr saacadood isla markaana saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo socodka gaadiidka ayaa habeennimadii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha degmada Dhuusmareeb ee gobolkaasi oo olol nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaaladaasi uu ka soconayo wararka caalamkana waxa ugu weyn daawadayaal hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dadka ku geeriyooday cudurka Ebola ee ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika ay gaartay 4033 qof waxaana qaramada midoobay ee dalbatay kaalmo dheeraad ah oo wax looga qabto cudurkaasi oo faraha ka sii baxaya daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed goordhowna u diyaar garooba faahfaahinta warkaasi oo aan idin baqaado hadii aan lidmo